السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا قيمها بدن وكسو دوادا جول 24 يشيكوينكي وحيسا بدنا سبورتيغا فلا هدي aad nagu cusub tahay channelkeena subscribe gambalelkana riix si aad u noqoto mar walba daawadaha ugu horeeya ay soo gaara fariimihii ugu xiisaha badnaa ee kubadda cagta. محمد صالح وuu sii joogi doonaa Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool muddada 6 sanadood ee soo socota sidaasi waxa yiri difaaci hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool ee Lovren ciiraankani waqtiga kan xaadirka ka dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Zenit St Petersburg ee Lovren ayana markaa kala soo weyn ku qaba wiil kare masaari ee Mohamed Salah ka oo hadda lagu naaneysayo Lionel Messi ga Africa ayana markaa la sheegaya in guud ahaanba uusan meelna kaga dhaqaaqi doonin mustaqbalka Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool. Toddobaadkii ugu dambeeyay ayaa warbaahinada qaar waxay xusayeen in wiil kare masaari Mo Salah guud ahaanba ay markaa muuqanayso mid markaa uu u hanqal taagayo inuu u dhaqaaqo horyaalka La Liga wadankaas Isbaanishka maadaama uu xiriir dhowba la leeyahay kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Real Madrid. Lovren oo ay saaxiibo dhow yihiin xidigan reer masaari Mohamed Salah ayaa yiri Mo waa ciyaaryahan aad u wanaagsan waana xidig noloshiisa aad u jecel kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Waan fahmi karaa marka Liverpool ay guuldarooyin la kulanto waxa cadaadiska inta badan taageerayaasha ay xooga ku saaraan inay markaa aflagaado u geystaan qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Waa wax mar walba ka dhaca kubadda cagta balse Mohamed Salah waa nin niyadiisu aad ugu weyn tahay inuu ku sii sugnaado Stadia Anfield ee kooxda Liverpool. anigu fikir ahaan waxaan qabaa in Mohamed Salah garoomada uu ku sugnaan karo 4 sano 5 sano ilaa 6 sano ee hadda soo socota maxaa yeelay taasi waxaan inta badan aaminsanahay in ciiraanka uu wali aad ugu faraxsan yahay mustaqbalka kooxda kubadda cagta Liverpool. Mohamed Salah ayaa kooxda kubadda cagta Liverpool garoonkeeda ku soo biiray sanadii 2017 waxaana uu haystaa heshiis gaariya tan iyo sanadka 2023 waxaana uu ku tilmaamaya Lovren xiriirka mar walba uu la wadaago xidigan reer masaari ee Mohamed Salah in ay tahay mid ay iska wareystaan xaaladaha labada dhinac ee Lovren iyo Mo Salah. Mo Salah wuxuu haystaa fursad aad u wanaagsan da'diisu waa 28 jir waa ciyaaryahan waqtiga kan xaadirka ay u hanqal taagayaan kooxaha ugu awoodda badan tartamada qaaradda Yuruba waana la socdaa inay jiraan kooxo waaweyn ee si gaar ah u daneynaya ciyaaryahankaasi. Mo uu sii joogi karaa Stadia Anfield 4 sano 5 sano ilaa iyo 6 sano ee soo socota sidaasi waxa yiri difaaci hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool ee Lovren. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaana markaa rajeynaysa inay tilaabo horumar leh u qaadi doonaan xidiga ka tirsan kooxda kubadda cagta Sevilla Diego Carlos. laacibkani ayaana markaa loo arkaya mudnaanta koowaad imaanshaha garoonka Santiago Bernabeu marka uu dhamaado xil ciyaareedkani sida ay daawacday jirada Marca waxaana agaasimaha isboortiga kooxda kubadda cagta Real Madrid uu xusayaa in ciiraankani Diego Carlos la doonayo inuu noqdo bedelka Capitano Sergio Ramos oo aanan hadda muuqan karin inuu mustaqbal dheer ku sii qaadan karo kooxda kubadda cagta Real garoonkeeda Santiago Bernabeu. Diego Carlos ayaa markaa loo arkaya fursad aad u wanaagsan waxaana loo sababeynaya in ciiraankan uu yahay xidiga kaliya ee ugu macquulsan imaanshaha kooxda kubadda cagta Real Madrid haddii Capitano Sergio Ramos xilligan muuqan karto inuu isaga dhaqaaqi doono kooxdaasi. difaacan ka tirsan kooxda kubadda cagta Sevilla ee Diego Carlos ayaa heshiis haysta tan iyo sanadka 2024 kooxdiisa waxaana waqtiga kan xaadirka la xusayaa in Real Madrid ay cadaadis xooggan ku saarayso balsida ay u xoojin lahaayeen dalabka ciiraankaasi Diego Carlos waxaana muhiimadoodu ay tahay inuu yahay dooqa ugu muhiimsan ee markaa imaan kara garoonka Santiago Bernabeu. xiriir aad u wanaagsan ayeen markaa la leeyihiin markii loo eego kooxda kubadda cagta Real Madrid kooxda Sevilla sidaas darteed ayeen markaa Real Madrid doonaysa bal inay ka dhaadhiciso qorshaha Diego Carlos in markaa loo soo boqoliyo garoonka Santiago Bernabeu ayagoo ay diyaar u noqon doonaan haddii arrintaasi la isku fahmo inay markaa guud ahaanba ka marmi doonaan xidiga waqtiga dheer la soo qaatay kooxda Real Madrid Capitano Sergio Ramos oo hadda loo gacan haatinayo shakhsiyanba horyaalka wadankaas Ingiriiska ee Premier League. laacibka qadka dhexe kooxda kubadda cagta Manchester City iyo xulka wadankaasi Belgium Kevin De Bruyne ayaana markaa aad uga carooday hadalayntii ugu dambeysay ee madaxda sare kooxda kubadda cagta Manchester City. carada xoogan ay ka muuqanaysa Kevin De Bruyne ayaa waxay ka dambeysay kadib markii wada hadaladii qandaraas cusub ee ama heshiis kordhinta ee kooxda kubadda cagta Manchester City iyo xidigan Kevin De Bruyne ayaa markaa dib loo dhigay sidaas darteeda kooxda kubadda cagta Manchester City waxa ay ku mashquulsan tahay bal xaaladda ay kula soo wareegi karaan laacibka u dhashay wadankaasi Argentine Lionel Messi oo markaa la xusayo in ay muuqan karto inuu ka soo dhaqaaqi doono garoonka Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barcelona markuu dhamaado xil ciyaareedkani walow ay kooxda kubadda cagta Manchester City ay u dhumaaleysanaysoba
inay meel cidlaha ka qaadato saxiixa laacibkaasi Lionel Messi waxaana ay kula xifaaltami doontaa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka ligoonka wadankaasi Faransa laakiin wiilka reer Belgium ee Kevin De Bruyne ayaa qaar ka mid ah saaxiibadiisa ku wargeliyay in xilligaani uusan ku qanacsaneen waxa ka soo yeeraya maamulka kooxda kubadda cagta Manchester City arrimaha ku aadan heshiiskiisa ciiraankani Kevin De Bruyne ayaa heshiiska ay Manchester City ka doonayso waxa uu ka yaryahay midka haatan uu ka haysto kooxdaasi waxaana waqtiga kan xaadirka la xusaya De Bruyne inuusan markaa diyaar u ahayn qorshaha diiwaangelinta ee kooxda kubadda cagta Manchester City ka doonayso ciiraankaasi in ay ka dhaadhiciyaan maxaa yeelay kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa doonaysa qarashaadkii ugu faraha badnaa inay ku soo qaataan Lionel Messi heshiiska Kevin De Bruyne ayaa wuxuu ka dhacayaa kooxda Manchester City tan iyo sanadka 2023 xaalad kale xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Isco ayaa la iska indhatiray mar kale taasi oo muuqanayso laacibkani guud ahaanba in uu lumiyay booskiisa joogtada ahaa garoonka Santiago Bernabeu Zinedine Zidane dhinac walba hadduu eegay waaba uu qaban la yahay ba in ciiraankani uu ka dhigto ciyaartooyda ugu muhiimsan ayadoo Real Madrid inta badan ciyaartooyda ugu muhiimsanaaba ay ka dhaawacan yihiin saas darteeda mucjiso xoogan ayaa ku habsatay laacibkan u dhashay wadankaasi Spain ee Isco waxaan hadda la xusiyaa Isco in uu diyaar u noqon doono inuu la xiriiri doono koox walba ee waqtiga kan xaadirka ay aad u daneynayso saxiixa laacibkaasi laakiin jirada Mundo Deportivo ee dalka Spain ayaa waxa ay shaacinaysaa in qorshahani uu markaa uu soo baxay kadib markii laacibkani la iska indhatiray kulankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Real Madrid Getafe marka ay la ciyaartay waxaan hadda la xusayaa in ay fursad xooggan u tahay kooxda kubadda cagta Everton ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska iyo sidoo kale Manchester City oo ayana wali la aaminsan yahay inay si gaar ah u xiiseynayso ciiraankana u dhashay wadankaasi Isbaanishka Isco maxaa yeelay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa ay si lama filaan ah ay gacantooda kaga bixin doonaan wiil dahabi ah ee lagu magacaabo Isco waxaana hadda la xusayaa in sheekadan Real Madrid ay ka shalayn doonto haddii Isco uu si fudud kaga dhaqaaqo xil ciyaareedkan markuu dhamaado garoonka Santiago Bernabeu dhinaca kalena naadiyada safka ugu jira ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Manchester United Paul Pogba waa kuwe waxaana hadda la soo warinayaa kooxaha kubadda cagta Juventus PSG iyo Real Madrid ba in ay il gaar ah ku hayaan xaaladda wiilka reer Faransa ee Paul Pogba waxaana la xusiyaa laacibkan ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester United Pogba inuusan ku qanacsaneen mustaqbal ahaan inuu sii joogo istaadiyaha Old Trafford ee kooxda Man United toddobaadkii ugu dambeeyay waxa aad loo hadalhayay mustaqbalka wiilka reer Faransa ee Paul Pogba sidaas darteeda qoyska uu ka soo jeedo ciiraankani waxa ay wiilkooda kula taliyeen in uu ka daneysto guud ahaanba kooxda kubadda cagta Manchester United waayo xilligan wuxuu haystaa fursad aad u wanaagsan maxaa yeelay kooxo waaweyn ee ka dhisan tartamada qaaradda Yuruba ayaa laacibkani doonaya saxiixiisa waxaa ka mid ah kooxdiisa hore ee Juventus ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga Paris Saint-Germain oo doonaysa inay magaalada Paris ku soo dhaweyso ee dalka uu ka soo jeedo Faransa iyo Real Madrid oo doonaysa magaalada Madrid inay ku soo dhaweyso gaar ahaan garoonka Santiago Bernabeu laakiin ciiraankani Paul Pogba ayaa heshiiska Stadia Old Trafford wuxuu ka dhici doonaa sanadka 2022 waryaanka kooxda kubadda cagta Everton Musa Kean ayaa qirtay in uu seegay inuu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta Juventus ee kooxdiisa hore ee dalka Talyaaniga laakiin haatan waxaan la joogaa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain waan ku faraxsanahay ayaa laga soo xigtay laacibkani Musa Kean oo ah waryaanka kooxda kubadda cagta Everton ayaa si amaah kula jooga kooxda kubadda cagta PSG xil ciyaareedkani waxaana laacibkani isbedel xoogan uu ka wadaa horyaalka ligoonka wadankaasi Faransiiska xidigan ayaa su'aalooyin kala duwan laga weydiiyay isbedelka mustaqbalkiisa waxaana la xusay ma uu xiistay kooxdaada hore ee Bianconeri Juventus mar haddii laacibkan uu ku jahwareeray inuu la qabsado kooxdiisa ka dhisan Premier League ee Everton laakiin waxa uu yiri kooxda kubadda cagta Juventus iyo horyaalka dalka Talyaaniga waa kooxdeeda waana jeclahay mar walbana waa aan daawadaa kulamada ay ciyaarto kooxda kubadda cagta Juventus marka aan fursad u helo in aan daawado kulamada kooxda kubadda cagta Juventus laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay mustaqbalka kooxda kubadda cagta PSG waayo aad ayaan ula dhacay sida ay la dhaqmaan maamulka kooxda kubadda cagta PSG tan iyo xilligii Musa Kean uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta PSG wuxuu laacibkan aad ula qabsaday mustaqbalka horyaalka ligoonka wadankaasi Faransiiska Manchester United wali ma aysan bilaabin xulashooyinkoodii ku aadanaa labada ciyaaryahan ee Edinson Cavani iyo Juan Manuel Mata
warbaahinada magaalada Manchester qaarkood waxa ay xusayaanba in xidigahani Edinson Cavani iyo Juan Manuel Mata aysan wali arkin dalabyo ku aadan heshiis kordhin kooxda kubadda cagta ee Manchester United. labadani laacib ayaana markaa ka dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Manchester United, laakiin hadda waa ay sii joogi karaan tan iyo sanadka 2022 waana qorshaha ugu weyn oo Manchester United waa ay ku abaalmarin kartaa muddo heshiis kordhin ku aadan hal sano ah si ciyaartooydaasi Juan Manuel Mata iyo Edinson Cavani ba ay Stadio Old Trafford ay markaa ugu sii sugnaadaan tan iyo sanadka 2022 balse ciyaartooydani ayaa heshiiskooda markaa uu ka dhici doonaa xil ciyaareedkani oo ay markaa ku beegan tahay bishii lixaad ee sanadkeenu ku gudi jiraan 2022 haddaan dib u eegno Juan Manuel Mata ayaa kooxda Manchester United ku soo biiray 24kii Janaayo sanadii 2014 waxaana heshiiskiisu ka dhacaya bishii lixaad ee sanadkan aan ku guda jirno. Cavani oo ku soo biiray 5 Oktoobar ee sanadkii tagay 2020 ayaa asna wuxuu ka dhacay heshiiskiisa bishii lixaad ee sanadka inuu ku guda jirno 2022. sidaas darteeda waxaa la xusayaa Manchester United waa ay siin kartaa Janis ay labadaas ciyaartooyba Stadio Old Trafford ay markaa ula sii jaanqaadaan tan iyo sanadka 2022. ugu dambeyntiina maamulka kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach ayaa guud ahaanba iska kansalay hadalhayntoodii ku aadanaa inay gacantooda ka bixin doonaan xidiga Dani Zakaria maadaama la xusay laacibkaani in uu ahaa xidigihii uga hadalhaynta badnaa xil ciyaareedkaynu ka soo gudubnay waxaana waqtiga kan xaadirka 24 jirkan qandaraaskiisa oo dhacaya sanadka 2022. xidigani Dani Zakaria waxa loo gacan haatinayo horyaalka wadankaas Ingiriiska oo muddo aad u fara badan ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City ay baahi xoogan markaa u qabtay. hadda Manchester City ayaa xiriir aad u wanaagsan balla leh maamulka kooxda kubadda cagta ee Mönchengladbach sidaas darteeda waxa ay kooxda Manchester City qorsheynaysaa in ciidankaasi markaa ay ku bixiso adduun lacageed gaaraya 40 milyan oo lacagta ganiga xidigani heerka caalamiga ee dalkaasi Switzerland ee Zakaria. sidaas darteeda waxay kooxda Manchester City doonaysaaba in xidigooda waqtiga dheer ee Fernandinho oo markaa ay badal kaga dhigaan laacibkani Zakaria. sidaas darteeda waxay qorsheynaysaa Manchester City inay ka dhaadhiciyaan maamulka kooxda Borussia Mönchengladbach, laakiin kooxdu ayaa la xusayaaba inay xilligan isbedel xoogan ku yimid sidaas darteedna ay doonayaan inay sii xijiyaan xidigooda Zakaria in uusan ka dhaqaaqin waqtiga kan xaadirka kooxda.